sideedaas irid ugu horreeyay waxa la yiraahdaa iridda taqwada la yiraahdaa oo waxa u daliila ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من خيره ويرزقه من حيث لا يحتسب ومعناه wax kala maaha qofka ilaahay ka dhowrsada ilaahay wuxuu ka rizaaqa meel uu san fileen oo waa loo kala kicinaa habi uu noqona marka qofka markuu taqwo la yimaado risqiga dhanaa u fududaanayo waxa laga yaabaa markay madaxa ku jirto tiraado islaadahay waa maxay taqwa marka si yar fudud af Soomaali ku sheega taqwada wax kala maaha ee waxa waa meesha uu ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan ugu arkin marka meesha ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan ugu arkin markaad istiraahdo anu waxa ma aqaan culimada ma untaga soo weydiya culimina weydiyo ma baahnid waayo waxa u daliila suurta shams ilaahay 10 jeer isku xigtoo dhaarana wuxuu ku dhaarnaa ugu dambeynta leeyahay fa alhamaha fujuraha wa taqwaha oo ah naf kasta waxaan ogeysiyay qaladkeedii saxeeda marka adigu waad ogtaa wax qalad ah wax saxaaye meesha ilaahay ka rabayna taagnaaw meesha iska rabina ka dhumo wadada koowaad waa taqwa marka la timaado rizqiga dhanaa lagu fududeynaa habiya noqonayda wadada labaad waxa la yiraahdaa tawakkul kala saarashada oo waxa u daliila waman yatawakkalillah fa huwa hasbu qofka ilaahay tala saarta rabbi yaa ku filan marka haddaad ilaahay tala saarato oo tira hasbi allah wa ni'mal wakiil ee shaqada aad socota aad hawlihi aad rabta aad doonato way ku fududaanaydaa oo tawakkalkaas ilaahay gashatay wax walba ku fududayna oo waxaan maqlaayay wadaad amaanuud arkay wuxuu ka sheekeynay wuxuu wadaada wuxuu ku dhaxlumay wadamadan Sweden iyo gurigiisa ka lumay wax kala ma sameeyay salaad intuu istaago ilaa gurigan ka dhumay gurigay haddii marka tawakkulkaaga uu gaaro wax kastana ilaahay weydiiyo tiraw ilaahay waa iga wareegsantay igtoos ilaahay tawakkalkiisa kugu filan xasbi allah wa ni'mal wakiil ilaaha nagu filan waa wadada labaad ee taajirnimada iyo hantida lagu helo wadada saddexaad waxa la yiraahdaa istighfar ilaahu yacfi maanta man iska tiraahdo waxaana daliil u ah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaara yursilu samaa ila aakhir aayah oo ah yaani waqti kasta daatira ilaahu yacfi ilaahay samada ka soo daadinaa rizq uma baahnid xataa inaa shaqaysato waxaan aad u malaydina xoog iyo aqal ku keenaydo uma baahnid istighfar la soo jeeso وما أنت قف داتر رولا لي عفي مركو عفي كده حتى وحاجليسه ونيجي وقدر نغارسين مركو وده الحالة اللي قلت أجر واستغفرته وده أفراد وده تقانا وحاول وده الشكر قال لي هذا thank you the one وحاول دليله لأن شكرتم لأزيدنكم إلها بنوبلنا قاعدة داد وحيرت هي ستآت الحمد لله إلهي وقوبة بنا مركو حالك يا بهنا استراحة هرتو إلهي محاون وما هاد عليا هرتو رئيسي وقوف البيع مرك إلهي سدح نمحو كسي نمعدك وهذا كسي وحالي هذا نمعة الوجود نمعة الجوجتانك وهاد جوجتا وهادلو يساوى تاجنت هاد جوجتا وحانا كتصي زوج وفل دليل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بري وحاجرتي إنسان كوردن أو سنهين بو وحلا الشيء هذيك حتى أسكسو قاد حلقي دولة سياد برحاجات جرت حلقي آذن عد حاجات جرت كسي فوقي حتى آذن عد ما هنا وحاجي سا حلقي محلي هذا سيد محمد عبد الله حسن حاجات جرت أما هو حلقي أصحابتي حاجات جرت مركب ما أنت ما ذي جوجن ما أنت جوجتا وأنا معذك هو مركب نمعة الوجود اللي هذا نمعة سال كسي نمعة الله بعض إلهي كسي وحواي نمعة الله هنشأ واحد اللي هذا إن الله ذا أرجع الله ذا مقل الله ذا ددنا الله ذا حي عقلي الله ذا عدا الله ذا إهل الله ذا أصحاب الله ذا فكر الله ذا إنه نمعة أنا حتكون وقتها بل نعيض هذا فيه قفان أنت حيستهي سنة جرو نمعة زد هذا إلهي كسيني ونمعة الهداية هنون كواي وما أنت قولنا أمازون يقول كاس كل لنا يس برازيل هنوني واحد صاحبك كم بيقول أو جانس أيكون هنونان أما محل هذا أي نور قصة ما يستان إلهي بمصين هذا ما أنت هنونا أقول لك تفضل مصلنا أقول لك تيو هوي أبو مهر كقول لهم سدح ناس إنهم عمرك حال ويديوك لي thank you ده لا هو ما هتسنتاني والله إن شكرتم لأزيدنكم مركب وضد أفراد وإنتاج كنا قكرنا وأنا أتلا هذا الحمد لله وضد الشناد وحالي هذا صلة الرحم أو هنا الترابة حريرسه محان الدليل هو حديث النبي جاء أو هاي من أحب منكم أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه
oo ah micnaheedu maxay noqonaysaa oo kama qaala micnaheeduna waxaa waa war qofkii rabo in adduunyadan loo qurxiyo ee hanti iyo wuxuu rabo la siiyo war dadkaaga oo qaraabadaada xiriiri haddana hadda technology la marooyaayo qaraabo xiriiriska wuxuu noqday like share iyo comment qaraabo goyskana wuxuu noqday blog marka hadda xataa saddexdaas isticmaasho ee eheladaada dad lacag kale aad u hayn xataa aad follow garaysay share garaydood la socotood waxa waay waxa ku badanayo aad fahmaydaa rizqi marka rizquna waa qanaacadi hantidin waa sideed ku helaydaa ka waran marka haddii xaq alla aan u fikirno oo aad familkaaga qaraabadaada asxaabtaada aad xiriirido ilaahay rizqa meel buu kaaga keenaa wadadaas marka waa wadada shanaad oo rizqa la yiraahdo silatu rixam wadada lixaad waa wada taqaanaan waa salaada oo waxaa daliil u ah aayadda qur-aanka oo ilaahay uu leeyahay wa'mur biahlika fi salaati wastabir oo annaga aan rizq siinee rizq kama rabno oo maanta markaad tukato ilaahay rizq badan uu ku siinaa waxaana kuugu filan waxaa la yidhi ninaa saaxiibkiisa xoolo yeeshay oo maqle waa u tegiyey waardiyihii iridaa celiyeen waxay dhaheen ma gelaysid wuxuu ninka saaxiib baana u galaa la yidhi gudihii markuu galo wuxuu arkay saaxiibkiisa oo tukanaya wuu soo cararay soo soo cararayo gurigiisa orod ku yimid wuxuu yidhi ilaahay u cafi ninka aan shaxaadka u doonteen wax weydiisan rabin ilaahu ilaa adoo ku shaxaadaa adaan ku shaxaadaa rabbi wax ii dhiib saaxiibkiisaa salaadda markuu ka baxay alla yidhi nin saaxiibkaaga ku yimid wuxuu yidhi waan ogaa ninkaa waa xishood badan yahay xoolahana laga dabageeyo marka maxaad garanaydaa haddaad salaadda ku adkaato uqsumin billah wax kaa maqnaanaya ma leh waad taajireen nolosha waxaa rabtaad helaydaa marka waa eridda lixaad waa inaad salaadda badisaa eridda toddobaad waa sadaqada oo waxaa u daliila waman yaqridullaha qardan xasana yudaacifu oo ah yacni yaa ilaahay sheer la galaayo waxaan maqlayaa qolo forex la yidhaahdo muqdisho joogto oo ku dhahayso $100 ii dhiibo 150 aan kaaga dhigaynaay ka waran rabbiga ku abuuray ku yiri 200 kaaga dhigaa oo haddana aan kuu sii laabo oo adduun iyo aakhira aad ku helaydaa marka waxaa sheekayra waxaa jirta waxaa leeyahay nabiga calayhi salaatu salaam neef ariyo gurigiisa ku qabo in salaadii iska aada Caaisha neefka way sadaqaysay hadhowtu markuu casirkii yimid Caaisha maxaa noo haray markaas waxay tiri garab aan noo haray wuxuu yiri garabkaas bisa naga maqan oo macnaheedu ay tahay adduunkan hantida aad shaqaysato guryaha aad dhisato gawaarida aad yeelato dahabka aad gadato dharka aad gadato waxaasoo dhan hanti aad adiga leedahay maaha laakiin $1 aad sadaqaysato ee dadka aad siida kaas bisa aad leedahay oo asaga iyo weyn ku soo noqaa inta ay ku joogto aakhirna asoo lagu la jibaarayo oo marka sadaqadu waxa waaye shayga iridaad oo maxaa la yiraahdaa toddobaad ee ka xigta inaad qani noqoto iridda ugu dambeeyay sideedaad waxaa la yiraahdaa iridda cilmiga oo hordana cilmiga markaad maqasho dad waxay la aadaan computerka baro physics-ka baro cilmiga horta lagu sheegaa si kooban daa kugu sheega waa macrifatullah waa inaad ilaahay aqoonsataa oo waxaa lagu leeyahay maanta daa computer barato waxaad baratay macrifatu khalqillah ilaahay wuxuu abuuray waxay abuureen aad baranaysaa haddii aad si iimaan leh aad wax u baratane cilmi kastoo baranayda ilaahu ku baraa ilaahu kugu xiraa ilaahayaad baranaydaa rabbiga ku abuurood fahantood baratane wallaahi waxaad ka maarmaydaa war hebelow ii dhiib war hebelow ii gargaar war keliya ay xanuunaydaa dhakhtarka xaguu ku yaallaa waxaa dhan waa ka maarmaydaa isagaa rabbiyaad mar walba u cararaydaa marka waa iridda sideedaad ee naga xigta inaan qani noqono sideeddaas irdood ilbaxnimo ay dabada ka riixayso iyaan rabnaa marka in yacni ummaddii aynu goysiinno oo nidhaahdo war sideeddaas iridaan u baahannahay marka qof kasta uu ku dhiirrado oo qof kasta haddana waxaa kaloo jirto aayad qur'aan waxaa jirta aad aanu jeclo leedahay lima taquuluuna maa laa tafcaluuna wax kalena maaha war waxaadan adiga samayn dadka ha farin marka sideeddii anigaa ku dhaqmo sideeddiyaan sameeyaa wallaahi qaniyaan ahay oo financialna qaniyaan ahay qanaaca qalbi ahaanna qaniyaan ahay